His Excellency Bashir Sheikh Umar God, Ambassador Somaliland ee wadamada Mareykanka iyo Canada, dhakhaatiirta inooga yimid North America, gudoomiyahooda Madar, Sarmarke, Yusuf, Canab, iyo inta kale ee halkan ka soo qayb geli doonta haddii Ilaahay qadaro. dhakhaatiirtan iyo ardaydan ka kala yimid gobolada kala duwan ee Somaliland, farxad weyn bay noo tahay in aan halkan saaka idinku soo dhaweyno annaga oo ku faraxsan inaad isweydaarsataan macluumaad ku saabsan xagga caafimaadka. sida aad la socotaan 3 maalmood buu socon doonaa insha Allah convention-kan maanta oo 25 26 iyo 27 haddii Ilaahay qadaro. dadka ka soo qayb galay waa dad sida rasmiga ah loogu talagalay waa 200 oo qof oo isugu jira dhakhaatiir, arday qaybta caafimaadka wax ka barata iyo laamaha kale ee xirfadlayaasha caafimaadka. intaa waxaa dheer kulley hawlwadeennada inoo daadihin doona barnaamijka haddii Ilaahay idmo. sideedaba generally markaad waxa weeyaan Ingiriisigu ku qoran yahayo horta saaha aan ku horeeyo erigan waxa weeyaan waa xarf la soo gaagaabiyay waxaan ka taagan tahay Somaliland American Health Association ayaa loo soo gaabiyay. marka hawsha tan halkan ku qoran non communicable diseases horta waxa loo qaybiyaa af Soomaali haddaan ku sheego waxa dad badan oo ina dhageysanayo oo aan waxaan fahmayn baa jira luqadana ku wada hadlayno. xanuunadu waa kuwa la isku gudbiyo iyo kuwa aan la isku gudbin ee qofka ku dhaca. hawshan maanta u fadhinaa waxay u badan tahay xanuunada aan inkastoo aanan dhakhtar ahayn oo aanan baxda caafimaadka ka tirsanayn haddana kama fogin xanuunada aan la isku gudbinin sida xanuunka dhiigkarka, macaanka, kansarka laga hortagi karo, xanuunada maskaxda ku dhaca iyo way badan yihiin. xanuunada aan la kala qaadin ee qofka haday ku dhacaan isaga un ku eeg. xanuunana waa kuwan la isku gudbiyo oo kuwa la garanayo sida Johnska kamida, hargabka kamida, COVID-19 ka kamida, kuwa waxa weeyaan sida disease waxa kamida halka AIDS ka kamida. marka kuwaasina waa kuwa la isku gudbiyo. halkan saaka waxaan u fadhinaa markaa in lagaga wada sheekaysto xanuunada aan la isku gudbinin oo ah kuwa carabka ku soo dhuftay. heerka ay taagan yihiin waana inagu badan yihiin waana kuwa hogaaminaya dhimashada adduunka marka kuwa kale la barbar dhigo xaqiiqda marka laga hadlo. in la iska wareysto bahda caafimaadka markaynu ka hadlayno waddanka Somaliland meelaha qaarkood horumar baa la sameeyay, qaarna dib baa loo noqday, qaarkoodna waxaan maleynayaa average halkii un baa la taagan yahay. meelaha horumarka laga sameeyay caafimaadka kamida yaana wada odhan waxa laga yaabaa gobolada galbeedka gaar ahaan caafimaadka horumar weyn baa laga sameeyay xaqiiqda marka laga hadlo. waayo anigu muddadii aan soo noolay marka 90yadii marka laga hadlayo waxyaabaha la yareeyay ee maanta indhahaygu qaban karayaan hooyadii iyo ilmihii isku dhiman jiray, hooyadii dhalmada ku dhiman jirtay iyo caruurta 5 sano ka yar ee xanuunada labada nooc u badani ay ku dhacaan ee dhiman jiray marka xaqiiqda laga hadlayo waa la yareeyay. xanuunadaas wax laga qabtay. TBD waa kii Dr. Walhad ka hadlayay ee halkay 300 iyo something ay ka soo gali jireen bishii waxa weeye dad aan 30 qof gaadhin ayaa yimaado oo waliba ka yimaado meelo kale oo inta badan ka baxsan gobolkan ka baxsan ayaa waxa weeyaan ayaa isqora. taas waxay muujinaysaa caafimaadka horumar weyn baynu ka sameynay. waxaana sameeyay dad isku tagay oo naftood horeeyaal ah saahana kuwaas bay wax ku daraysaa.
meelaha kale aan horumarka ka sameynay waxbarashada ka mid ah waxbarashada anu waqtigeena ka qalin jibay dadkii u dambeeyay baan ahaa dugsiyada sare waqtigii ay Soomaaliya burburaysa fasalun baan naga dambeeyay fanfoorada 89 ladkii baxay baan ahaa 90gii qoladii imtixaanka laga qaado baan naga dambeysay matalan laba dugsi baa jiray waqtiga gobolka awdal gebigiisaba laba dugsi sare oo ah Amuud iyo Sheekh Ali Jawhar waxaan isku ahayn 159 ardayda fanfoorka 100 arday oo ah Sheekh Ali Jawhar iyo 59 arday oo Amuud ahaa baanu ahayn waqtigaas hadda gobolka awdal oo kaliya hadii saamba loo soo qaato 29 dugsi sare ka jira 50,000 oo arday in ka badanna waxbay ka bartaa iyada oo aan waliba la gaadhin baadiyaha oo gobolkani ka mid yahay gobolada ugu dambeeya xagga marka laga tago magaalooyinka imika gobolada bariga iyo Soomaaliya waxaad ogtihiin dad is abaabulay oo qurbaha ku nool ayaa macallimiinta ka bixiya ardayda waxbara laakiin inaga marka laga hadlayo tusaale soo qaadanaya gobolkan awdal dugsiyada sare laga soo baxaa waxa uu Saylac iyo dugsiga Geb Xariirad Boon Qulinjeed Baki oo Ruqi iyo Dila wixii boorama ka baxsan tuulooyinkii kala meeyay marka 165 tuulo jira maxaan tiriyay marka inta aan tiriyayna waxaan toban gaadhaynin goobaha kale dad eed ka baxaana ma jiraan dad secondary ka soo baxaana ma jiraan marka xagga waxbarashadana si kasta marka average-ka la eegayo meelaha horumarka laga sameeyay bay ka mid tahay meelaha aynaan horumarka ka sameeyin waxa kamid ah xagga waxa weeye korobka ama waxbeerashada ayaa kamid ah umayna dhaqaaqay barigii hore laga wanaagsanaa wax soo saarka barigii hore laga wanaagsanaa dib baa loo noqday xoolaha aad baa dib loogu noqday oo waxa weeyaan xooluhu waaba sii dabar go'ayaan beeraha la ootay waxna lagama beero xooluhu waa dhamaadeen aydu baan ku soconaa inagu waa laga yaabaa in wax si cunno laakiin waxba ugama tagayno marka sustainable development ka laga hadlayo resource ka haysatay inaad ka faa'iideysato bulshada ka dambeysana aad wax uga tagtaa wax laga tagayo ma jiro xooluhu waa dhamaanaya meelaha ay dib u noqonayba ganacsiga horumar baa la sameeyay xagga kalluumaysiga dib u dhac baan sameeynay marka yaani waxaan uga jeedaa caafimaadka wax ku talax tagay laakiin caafimaadku waa meelaha aynu horumarka ka sameeynay aad baan soo dhaweynaynaa 200 xirfadlayaasha caafimaadkana waxaan rajaynaynaa inay wax badan kala faa'iideysan doonaan isku warrami doontaan heerka aan marayno waxa weeyaan marka qiimeynta la sameeynayba laba habba waa loo sameeyaa marna waxa la isbarbar dhigaa dalalka jaarkaaga ah marna adiga sanadihii u dambeeyay bal inaad hore u socotay iyo halkii taagantay iyo dib inaad u noqotay performance-kaagii baa la qiimeeyaa insha Allah qiimeeya war wanaagsan inuu ka soo baxaan rajaynaynaa soo dhawaadaan leenahay waana inoo furan yahay convention-ku assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh